baabuur xoog ku soo jiiray kantaroolada Gabiley iyo Kalabaydh isla markaana dhaawacyo u soo geystay qaybo kamida booliska kantaroolka Gabiley ayaa ciidanka booliska magaalada Boorama ku guuleysteen inay ku qabtaan kantaroolka koonfureed ee magaalada Boorama kadib markii uu soo gaaray kantaroolka koonfureed ee magaalada Boorama ayaa ay booliskii joogay kantaroolkaasi joojiyeen kadib waxa uu sameeyay diidmo kadib waxa ay booliskii halkaasi joogay isticmaaleen rasaastaasi oo ay rasaas ooda kaga qaadeen isla markaana ay ku guuleysteen in ay baabuurkaasi qabtaan taliyaha ciidanka booliska gobolkan Awdal Mudana Araweelo ayaa warbixin uu siiyay saxaafadda waxa uu sheegay in baabuurkani laga leeyahay magaalada Boorama isla markaana aan ilaa hadda laga warqabin waxa uu sido marka laga reebo 6 qof oo saaran waxa kale oo baabuurkii waa ku hor imanay ciidankii halka deganaya ciidankii kale shaqada lahaa halka baa isku keenay baabuurkii markaan aragnay ee uu noo soo muuqday ila joojiyay wuxuu isku qaaday sida arkaysan karbadaas isku qaaday xabalaan ku rinay halaas kali waa dhaawac yar oo saaray iga gaaray waa ku guuleysanay inaan gacanta ku dhigno dadkii saarnaa xasoo taxaamnay baabuurkii rasaaka saldhiga geynaa baaritaankiina waa socdaa natiijada wixii ka soo baxana mise qof soo sheegnaa dadka saaran waxaan 6 qof afar rag iyo 2 haween ayaa saarnaa dhamaantood saldhiga ku sugan yihiin waa xiran yihiin baaridina waa socotaa waad maarsantahay waxa weeyaan kulley inuu ka wax walba 10 baa laga bartay nageer qabatay marka inaga controlkeenan intii waa didaashan 100% aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waya de khatartii u baabuurkaasi ninka dadkii u siday iyo dadka kaleba khatarta ku ahaa hadii qabateen waxa weeye ilaahay mahadi aad iyo aad bay adiga ciidankaaga anu mahadnaqayaa ilaahay waa mahad leh laakiin haddana ka diyaar garowga masalan halkan oo kale inaan talaabo ka qaadno weeyaan halkaasi ka hadlay taliyaha traafikada gobolkan Awdal Ahmed Daahir kaasi oo sheegay in lagu soo wargeliyay baabuurkani markii uu soo jiiray kantaroolada Gabiley iyo Kalabaydh ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolkan Awdal Ahmed Xadi Sicdi ayaa ku amaanay booliska magaaladani Boorama hawshaasi ay qabteen waxaanu sheegay in ay tahay markii ugu horeysay oo la arko baabuur si amar diida ku soo jiira kantaroolada isla markaana dhaawacyo ka geysta inta u dhaxaysa Gabiley iyo Boorama haddana ka diyaar garowga masalan halkan oo kale inaan talaabo ka qaadno weeyaan xarig baa ku xiran marka hadii ilaahay insha Allah inaba la kaashina dawladda hoose iyo wixii tabarteena in halka aan bir ku xidhno oo controlka xariga laga bedelo iyo kula jaweyna insha Allah baabuurkani ayaa ahaa waxa ugu hadalhaynta badan ee ay maanta magaalada Boorama dadka ku nool isweydiinayeen isla markaana lagaga sheekeynayay meelaha shaaha lagu cabo baabuurkan ayaa inta xog laga hayo la sheegayaa in uu waday 6 qof oo 2 kamid ah ay ka yimaadeen dalka dibadiisa wax faahfaahin oo inta dheer wali lama siin laakiin waxa ay dadka ka iyo saxaafaduba ka dhul sugayaan wixii warbixin ah ee inta dheer ee ka soo baxa Khadar Maxamed Xasan Xidigta News magaalada Boorama